waxaa dhacday qiso isla xajka dhexdiisa ka dhacday qisadaas waxay ku saabsaneed gabar ayaa waxay soo wacday sheekh liyaa sheekh cabdilcasiis al sheekh oo ka mid ah culimada sacuudi carabiya ee ugu waaweyn isla markaasna ah muftiga caamka ah ee sacuudi carabiya barnaamij waagaas socon jiray la oran jiray nuur cala dab ayay waxay ka soo wacday telefoonka isla markaasna wax ay soo weydiisay su'aal gabadhi waxay tiri sheekhow mar allaala iyo markii aan horumar isiraada samee waan fashilmaya mar allaala markii aan dhib ka baxo waxa weeye haddana dhib kalan gelaya markii aan isdhaho waxa weeye maanta ayay noloshaadu ay ku hagaagaysaa haddana waxa weeye waa fashilmaya mar allaala markii aan tallaabo qaadaba caqabad bay igu imaanaysaa wax kasta aan ku hamiye heli maayo hadaf kasta aan sirahada gaari maayo kurba joogtaana way haysaa sheekhow maxaan sameeyaa sheekhu wuxuu ku yidhi hadday intaas aad sheegays ay jirto waxaa jira wax sir ah baa jira oo adiga ilaahay aad isla ogtihiin maxaad samaysay oo sirta ahay muxuu yahay oo waxa weeye aad samaysay sheeg si aanu xal u keenno waxaa jira sheekhow waxa weeye sir waa run sir baa jirta laakiin sirtaas inaan sheego ma rabin haddeerna inaan waxaan telefishin yani idaacad ka sheega na ma aan diyaar uma aan ahayn laakiin bay tiri sheekhow maadaama waxa weeye dhib aan ka bixi waayo oon cariiri ka bixi waayo oon kurbo ka bixi waayo oo waxba i hagaagi waayeen waxa weeye maanta waxaad igala qaban karta arrintaa igala qabo hayee buu yidhi ii sheeg maxaad samaysay waxay tiri sheekhow aniga iyo odaygayga iyo hooyadiis baa waxaan isu raacnay sanadadii lasoo dhaafay xajkaan isu raacna bay tiri markaanu xajkii tagnay oo magaalada aanu galnay ayuu waxa weeye wiilkii aniga i qabay hooyadiis gacanta ku dhigay hooyadiis ayuu hoteelkii markaan tagno meel la seexanaya hooyadiis ayuu markaan tagno maqaaxidii cuntada la cunaya hooyadiis ayaa markii aan waxa weeye aan xaramka galno iyaduu gacanta qabsanaya iyadii uu la dawaafaya iyadiibu waxa weeye meel kasta oo waxa weeye aan u dhaqaaqnaba waxa weeye iyadiibu waxa weeye ku mitidaya anigiiba way ilaawayba anigii naagtiisa la socdayba way ilaaw wax allaala iyo wixii waxa weeye aan u baahdaba ka heli maayo islaantana saas intaa ugu adeegaya intaanu arrimaha xajka dhex jirnay arrintaasna waan karahsaday bay tiri aan karahsadee ma xumee mar allaaliya markii waxa weeye aan aniga isagoo kelmad isniraahnaba waxa weeye wiiga caroon jiray bay tiri awalna oo guriga hooyadiisu aadi jiray oo markii hore aanba islaanta iska necba waxaa dhacday bay tiri mar allaali markaanu xajkii tagnay in aan waxa weeye islaantii oo dawaafaysa oo dawaaf ku jirta inaan la soo kulannay meel cariiriya meeshii cariiriga annagoo marayna bay tiri baan islaantii intaan xagga iska fiiriyey baan garbiyey bay tiri markaan garbiyey islaantii way dhacday kadibna dadkii xujayda ahaa ee faraha badnaa ee yaacaya baa islaantii ogada ka maray sidii bayna islaantii ku dhimatay arrintaasna ilaa hadda ninkaygu ma oga cidna ma oga ilaahi subxaana wa tacaalana waxa weeye maaha cid kale ogima jirto sheekhow arrintaan garanayo waa arrintaasi maxaan sameeyaa sheekhi waa uu naxay waa uu argagaxay waxaana uu ku yidhi arrintaas hadday jirto waanaad waxa weeye iskentaa shareecada isla markaasna waxa weeye xukunka ay leedahay lagu marsiiyaa haddii aad tahay qof aaminsan waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo maalinta qiyaame waankiiska aad gashay waxa weeye aad shareecada isu soo gudbisaa sida awgeed waxaan ka codsanayaa walaahiga muslimiinta ah ee soomaaliyeed in aysan xajka ka doonan dunuube ay ajir ka doontaan isla markaasna markii ay dawaafayaan ay ixtiraamaan walaalahooda kale ee muslimiinta ah aysan adeegsan wax cunfi iyo xoog ah ay u naxariistaan walaalahooda kala tabaalaysan sidaas iyo anigoo walaalkan Shamsuddin Makaawi oo idiin soo gudbiyay fariinta ilaahay dartiisa ku soo gudbiyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh